laba fanaan oo hore Maxamed BK iyo Axmed Biif hore ayay uga heeseen hoolkan laakiin maanta uma iman bandhig faneed muxaadaro diini ayay jeedin doonaan wasiirka diinta iyo awqaafta Abwaan Yuusuf Shaacir iyo culimo kale ayaa muxaadarada ku wehelinaya boqolaal qof ayaa madasha ku sugan qaarkoodna dabadda ayay fadhiyaan kadib markii goobtu ay qaadi weyday labaduba dadka waxay ku boorinayaan in dariiqa toosan ummadda lagu hanuuniyo kaas oo ah in la qaato wixii ummadda alla uu faray wuxuu inaga reebena laga tago horta waa inaa ogaataan rabbi wuxuu inoo keenay adduunka hadafka iyo maqsadka uu ina ka leeyahay oo adduunyadan inoo keenay waxa weeyaan waa inaynu horta rabbi caabudno subxaanahu wa tacaala rabbi inaynu caabudno haddaynu rabbi caabudno subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhiraba waa liibaanaynaa adduun iyo aakhiraba waa ku liibaanaynaa farxadu waxay ku jirtaa waa diinta qofku markuusan alla caabudin iyo markuu uu alla caabudo waa qof dhintay iyo qof nool labadaas iyo isleey fanku meel qurux badan muu ahayn anaa ka yimid halkii ku sabaysana waan ka gaadhay laakiin dadkaas waxba lama joogaan riyun baa lagu nool yahay stress adoo lacag jeebka kugu jirto baad xanaaqsan tahay waa diin la'aanta weeye saaxiibada waa uga yeedhaya waxaan leeyahay khayrka soo camira culimo Abwaan Yuusuf Shaacir wasiirka diinta iyo awqaafta ayaa iyaguna madasha hadalla ka jeediyay ugu dambeyn Maxamed Saciid BK ayaa la yeeshay waraysi kooban Maxamed Saciid BK fanaan hore laakiin imikana sheekha muxaadarada galabta ka qayb qaadatay bal halkii aad heesaa ka qaadi jirtay hoolkii aad heesaa ka qaadi jirtay ayaad galabta muxaadaro ka gashay dareenkaagu intee leeg xasan galeed aad baan ku salaamay adiga iyo Home Cable TV ما شاء الله وريا يا شان أدوك هو شعلي بكتير ما شاء الله أد مر لبعض هون كيبل تيفينا وماشي عن برشة كبرنا بريجان عين كاين أد نوانجوهم بلينيا هدرنا خيركم بانو كفافيننا ما شاء الله وحنو أركاه كي يجو فرحة بدناين وها مش رح يدو يكلم مدينه مركاد تتكوعي جليس أنا قدين توان برنايا وما قانا قويه هنميهانو لكن هو برنايا مركان برتو لكن برشة ده sida cadnimo ku jirto ayaan ugu shaqeynaa waxyaabaha niyadeyda ku jira inaan sameeyo goob culimadu ay ku muxaadareyso oo dumarkuna ay albaab ka soo galaan raguna albaab ka soo galaan culimaduna ay meel ka soo gasho hadii aan dhul helo cidin baan weydiisan dad bulshaduna ay la dhisto dadka ay la dhisaya ma sha Allah sidii oo fadwa ahaan baan ku dhisay waxyaabo badan oo qalbigayga ku jira oo anigu waxbarashadiina ku jira inaan sidaana u wado oo aanan bulshadeyda waxa wanaagsan aan u fidiyo jecel marka dareen ahaan marka dhowr boqol oo qof oo adalkan muxaadaro uga jeedinaysay shalayna aad hees uga jeedinaysay dareen ahaan shucuurta wallahi way kala duwan yihiin oo muusiga horta markii muusiga la shidi jiray dadku way ma garanaysaa laakiin markay fadhiyaan bay fiicantay hadba waa speaker kaad isticmaalayso waa inuu gaadho dadka ma sha Allah marka sidana fiican isku ma dhawa xasan galeedow waxaan leeyahay ka soo baxa saaxiibadayna halkana qabow anigoo lacag haysta baan fakiray oo fanka ku jira laakiin diintaadu wax adoo ku jira adigoo aan waxba haysan aanad fakirin xaroonayna xasilooni dareemisa ma sha Allah ugu dambeyn dad badan baa leh BK waxa laga yaabaa inuu fankii ku noqdo arinta maxay horta deesaarku haduu qiimo lahaan waan iska soo reebay kowdii si kastaba aan soo reebay 15kii baan fanka soo nacay darajana waxaad ku garan kartaa waa la qiimeeyaa qof darajo fanka gaaray ma jirto oo meel maqaam sare ka gaaray ma jirto marka meel loo tartamana maaha ifiya aakhira midna kuma fiicna xasan galeedow waa wada dhuxuleeda iskaga soo baxo khayrka kale dadka aan u faafinay aad iyo aad ma xasan galeed wararka